bismillahi raxmaan raxiim waxaan rabnaa inaan halkan kusoo gudbino muuqaal aad u kooban oo ardayda ka caawin karo in ay helaan articles tayadooda aad u sareyso. Inta badan ardaydu waxay ku wareeraan markii ay mowduucyo raadinayaan ee google-ka wax ku qoraan, waxaa kusoo baxa wax kumanaan kun kor u dhaafay. Marka sidee focus looga dhigaa waxaas oo wax aad u kooban oo weliba PDF toos loo degsan karo oo ardayda ugu dhigayaan. Number one, ardaygu waa inuu haystaa horta mowduuc uu rabo inuu wax ka qoro. Tusaale ahaan hadda aniga waxaan aad u jeclahay inaan wax ka qoro digital marketing shirkadaha ka shaqeeya developing countries-ka. Gaar ahaan digital marketing waa weyn yahay, laakiin waxaan jeclahay online shopping in developing countries. Markaa haysatid areadaas waa qaadaysaa, then you go Google. Waxa ugu muhiimsan marka waxa waaye articles marka akhriskooda bilaawaysid oo mowduucan uu marka ugu horeysa ku yahay, waxa ugu fiican waxa waaye inaad ka bilaawdid article literature review ah. Waxaa laga wadaa article ka wada hadlaya areadan waxa laga qoray dhammaan hal article iskugu keenaya. Marka article noocaas heshid wuxuu aad kaaga saacidaa inaa aad meesha rabtid sii aadi kartid. Laakiin haddii aad ka bilaawdo kale article wax guud ka hadlaya, waa kastoo yar wareer iyo ka qaadaysaa. Marka see ku helaya article literature review ah? Marka Google waxa uu sheegaysaa inaa waxa u baahan tahay yihiin literature review. meeshaas aan capital letter ah ku qoraysaa, kadibna literature review. Marka u fiirsato andadan waa capital letter waaye. Sababtan aan ugu dhigno waxa waaye Google waxa uu sheegaynaa andadan kama tirsana sentence-kan kama tirsana. Andadan waxay isku xiraysaa labadan qeyb. Okay, marka Google waxaan leenahay go ahead. Marka hadda aan u dirno Google waxaa noo soo baxay natiijo, laakiin natiijadaas waa 820,000 natiijo ah. Waa waxa aan aqli gal ahayn. Waa inaan ka dhignaa focus oo dhahnaa Google natiijooyin nala xiriira nasi. Sababta hadda marka inta u fiirsato electronic business adoption waa wax oo kastoo yar aan shaqo nagu lahayn. Marka u fiirsato meelahan oo kale banking, internet banking waa sax nala xiriira. U sii fiirso meeshan kore cross cultural adaptation health waaye. waxa waa isku qasan yihiin marka wax nala xiriir waxa nala xiriir. Google si uu sheegaynaa waxaan go aadaynaa advanced-ka, then kadib waxaan leenahay meeshan literature review hadii aan xagga gelinay inaan kasoo qaadno waxaan dhahaynaa qaybtan exact phrase kan gelinayna. Qaybta exact phrase markaan gelino u fiirsa hadii 820,000 natiijadeena ahayd. Hadda laakiin meeqa waaye? waa 159,000. waxaan kasoo tagnay 820,000. waxaan joognaa 159,000. aad u yar tahay, laakiin weli aad u badan tahay. Sababtoo ah waxaa weli nagu jiro waxaan nala xiriirin. Waa inaan weli sii focus garaynaa. Markay meeshan taagan tahay Google waxaa hadda howsha uu ku wado hadda u fiirsatid waxa waaye wuxuu raadinayaa online shopping mid u kala raadinayaa. Online shopping, online gooni u raadinayaa, shopping gooni, developing countries gooni, waxaas dhan mid u baaraa. Marka Google waxaan leenahay isku wada qabo laba u raadi. Online shopping-na ha iswataan oo ha kala reebin, developing countries-kana ha kala reebin. Kadib intaan dhahaynaa intaan dhihin lambarka hadda waa 59,000. Okay, enter dheh. Okay, waxaa haysanaa only 4,000. Okay, aad u soo yaraan soo maaha. Okay, markaan haddana waxaa jira hal arin oo rabno inay ardaydu fahmaan. Arintaas waxa waaye hadda natiijada kuu soo baxaysa Google wuxuu ka raadinayaa erayadan title-ka iyo article-ka gudihiisa. Article kasto waxaan uu ka helo Google kuu keenay. Laakiin waxaan rabnaa inaan dhahno Google noo keen kaliya articles ka title-koodu ka mid yahay erayadan. Wixii aan title-ka halahan eray ku wadanin naga reeb. Sideen ku dhahaynaa? Then inta tagno waxaan dhahaynaa all in title. Okay, then literature review naga reeb si aan oo title maadaama aan dhahono Google-ka aad u xadidnay literature review iska reebeen. Okay, kuwan inverted commas ka bixinayna maadaama waaba u sheegnay all in title-ka soo geliyaan dhahnay. Okay, enter dheh hadda marka 4,000 ahayn only 6. Okay, mujida hadda waxaan haysanaa kaliya 6 article oo title-kooda ku jiro online shopping developing countries-ka. Hadda u fiirsatid waa very relevant waa articles-ka dhan. Article-kan title-kiis fiiri. Logistics in developing countries, electronic commerce, e-commerce, the case of online grocery, Jordan waa a developing country waa sax. Online shopping in developing countries, case study Iran haddana waa developing country. Hay kan hadda u fiirsatid Jordanian shopping in developing countries, online shopping waa very relevant waa. Waxaa kasii muhiimsan dhammaantood waa PDF, macnaheedu yahay waa degsan kartaa. Marka
qaabkaasaa inta badan ardayda aan rabnaa inay raacaan markii ay bilaabayaan. Kadibna markaad soo degsatid steps ku xigan videoyo kale aan kusoo duubi doonaa insha Allah. Marka waxaan rajeynaynaa inay ardayda caawiso muuqaalkan. Waa mahadsantihiin.